salaamullaahi calaykum akhyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada tabin iyo taxliilin kale oo ka mid ah wararka ugu waaweyn caawa iyo dhacdooyinka gobolka bariga dhexe waa 20-ka bisha May sanadka 2026 tabintan qodobadaan idinkugu hayo haddii guulaha saamaxo aad daawo doontaanna waxaa ka mid ah xafiiska ugu sarreeya ee dalka Iiraan ee Ayatullaahiga ayaa madaxweyne Donald Trump ku tilmaamay nin wareersan oo aan fahmi karin jihada laga jiro iyo waliba waxa uu ku hadlayo waa nin maalinna hanjabaya maalinna nabad raadinaya ayay yiraahdeen haddaba warka ka soo baxay xafiiskaasi sidee loo macnayn karaa Mareykanka caawa waxa uu dhambaal ku socda wadanka Iiraan oo u gudbiyo dawladda Pakistan iyadoo markana jawaab laga doonayo dawladda Iiraan in ay arintaasi ka jawaabto oo ay si wanaagsan uga falceliso warka Washington ka yimid caawa madaxweynaha wadanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa ku dhawaaqay wadankiisa in markan uu ku jeefo lib iyo guul xoogan marka la fiiriyo xaaladda la wajahayo iyo cadaadiska wadanka Mareykanka saaran madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal niyad dejin u diray ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo dhimasho ka xiga in heshiis lala galo wadanka Iiraan dhaqdhaqaaq xoogan ayaa caawa soconaya oo dadaalada diblomaasiyadda iyo waliba dhinaca kale ee dagaalka iyo diyaar garowgu waa ishareero socdaan qodobadan ugu dambeeya ayaan ku lafaguraya barnaamijkan iyo waliba jihada gobolka bariga dhexe oo maalmihii la soo dhaafay xiisadii gacsanayd haddaad moodo in lagu shubayo biyo qabow sidee wax u jiraan soo dhawaada oo ku soo biira YouTube kan oo subscribe saara kan kale Cabdilcasiis Barrow iyo waliba kan Barrow Show labadaba barta Facebook-na waad nagala socon kartaan soo dhawaada akhyaarta in nala socotay iyadoo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu cirka ku shareeraya maalmihii ugu dambeysay hanjabaad ku socotay dawladda Iiraan oo ku aadanayd wadankaasi in lagu qaadi doono weerar ciidamada Mareykanku ay diyaariyeen iyo kuwa Israel haddana xafiiska sare ee la taliyaha ama aan iraahdo murshidka wadanka Iiraan ee Ayatullaahiga ayaa ka jawaabay dooda Trump waxana ay ku tilmaameen nin jahwareer badan oo ka muuqanayo maskaxiyan daalayba marka la fiiriyo hadalladiisa isweydaarsan ee maalinba gelin bacayna waxana ay soo jeediyeen in ninkaasi cadaadiska hayo uu kaga daran yahay baa layiri kan dawladda Iiraan uu kala kulmay hadda la taliyaha sare ee hogaamiyaha dalka Iiraan ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku jiro marxalad isdhaafa xaalad adagna uu u dhaxeeyo oo hanjabaad joogto ah ee ka dhana Iiraan iyo cara ka taagan gudaha Mareykanka ee la xiriira sare u kaca qiimaha shidaalka ee qarankiisa iyo waliba shacabkiisu ay ku hayaan mas'uulkan ayaa Hussein Trump uu wajahayo cadaadis gudaha maadaama xakamaynta sicir bararka iyo waliba dejinta xaaladda dhaqaale ee Mareykanka ay u baahan yihiin xasilooni suuqyada caalamiga iyo hoos u dhaqidda qiimaha hoos u dhigidda qiimaha tamarta iyo shidaalka waxuu intaasi ku daray in ay kordhayaan xiisadda gobolka bariga dhexe ay saameyn toos ah ku yeelan karaan dhaqaalaha Mareykanka gaar ahaan qiimaha shidaalka iyo waliba nolosha sii kordhaysa ee wadankaasi Mareykanka ka taagan iyadoo laga baqayo ama la filayaan iraahde in madaxweynaha dalka Mareykanka uu qaato nabad gobolka bariga dhexe marka la fiiriyo isbedelada siyaasadeed ee dhacaya 24 saac ee ugu dambeeyay haddana caawa waxa uu dhambaal niyad dejin u diray ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo maalmihii la soo dhaafay uu arkayay dagaalka in looga baxay oo lagu kaliyay wakaaladda wararka Tasniim ayaa soo xigatay ila ku dhowaaliyay dalka Mareykanka in ay u gudbiyeen ra'iisul wasaaraha wadankaas ama nidaamka Israel warqad niyad dejina sida ay ka soo xigatay jaraa'idka Axios ee ka soo baxaya dalkaasi Mareykanka sida ay sheegayaan majalada Axios madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu sheegay in dhaxdhaxaadayaashu ay ka shaqeynayaan qoraal niyad wanaaga oo la xiriirta baa layiri arrinta u dhaxaysa Washington iyo Tehran taas oo lagu doonayo in lagu dejiyo xiisadda ka taagan gobolkaasi
warbixinta waxaa sidoo kale lagu tilmaamay in Trump iyo Netanyahu uu ku wargeliyay in la qorsheynayo 30 maalmood oo wada hadal ah kuwaasi oo diiradda lagu saarayo barnaamijka nuclearka Iran iyo xaaladda marinbiyoodka Hormuz. Labada hogaamiye ayaa la sheegay in ay yeesheen wada hadal adag oo ay kaga doodeen dadaal cusub oo lagu raadinayo heshiis lala gala dowladda Iran. Si yeeshee Netanyahu ayaa sheegay in ay ka caroodeen natiijada iyo jadwalka wada hadalka Mareykanku ay banaanka soo dhigeen. madaxweynaha wadanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran Mas'uud Pezeshkian oo la kulmay wasiirka amuraha gudaha ee wadanka Pakistan ayaa waxa uu ku dhawaaqay wadankiisa inaanu ahayn kan xurinayo colaadaha isla markaana ay ku taagan yihiin xuquuq aasaasi ah oo wadanka Iran ay leeyihiin. arrintan ayaa waxay ka dambeysay markii labada dhinac kulan aad muhiim u ah ay ku yeesheen magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran. madaxtooyada Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Mas'uud Pezeshkian uu kulan la yeeshay wasiirka amuraha gudaha ee dalka Pakistan Muhsin Naqvi kaasoo ay kaga wada hadleen xaaladda wada hadallada diblomaasiyadda ee u dhaxeeya Tehran iyo Washington. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Pakistan uu aad ugu adkeeyay muhiimadda sii wadista wada hadalka iyo in la xoojiyo xalka diblomaasiyadda iyo xiisadda Mareykanka iyo Iran u dhaxaysa. sidoo kale wasiir Muhsin ayaa la sheegay in uu gaarsiiyo fariin ka timi mas'uuliyiinta Pakistan kuwaasi oo lagu dhiirigelinayo in dhinacyadu ay diiradda saaraan wada hadalka Islaamabad iyo waliba u dhaxeeya dowladda Mareykanka sida ay hadalka u dhigeen. dowladda Pakistan ayaa la sheegay caawa in loo soo gudbiyo nuqul hindisa ah oo ku saabsan wada hadalka la doonayo mar kale inuu dhaxmaro dowladda Mareykanka iyo sidoo kale dhinaca Iran ee gobolka bariga dhexe ay ku loolamayaan. war ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Pakistan ayaa lagu sheegay tallaabadan inay tahay mid iminka si weyn looga shaqeynayo. wakaaladda wararka Tasniim ee wadanka Iran ayaa sheegtay inay soo xigatay ilo ku dhow kooxda wada hadalka Iran in Mareykanku uu soo gudbiyo qoraal cusub oo jawaab ah kaas oo la soo marsiiyo Pakistan 3 maalmood ka hor kaasi oo iminka gacanta dowladda Iran soo galay. ishaasi waxay sheegtay in Iran ay haatan si taxadar leh u darsayso qoraalka cusub ee Mareykanka isla markaana aysan weli ka bixin baa la yiri wax jawaaba oo rasmi ah. sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in weli aan la gaarin heshiis kama dambaysa oo ku saabsan isdhaafsiga qoraalada labada dhinac iyo sidoo kale in dhexdhexaadiyaasha Pakistan ay door firfircoon ka qaadanayaan isku soo dhawaanshiyaha mowqifyada Tehran iyo Washington. dhinaca kale madaxweynaha dalka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in ixtiraamka wada hadallada diblomaasiyadda uu ku amaanan yahay baa la yiri wadankaasi isagoo ballan qaaday in ay dadaal badan ku bixin doonaan sidii arrintaasi xal kama dambaysa loogu heli lahaa. wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran waxay ka hadashay xaaladda diblomaasiyadda adag ee hadda u dhaxaysa dowladda Mareykanka iyo sidoo kale dhinaca ka soo horjeeda ee sida weyn ay isku hayaan ee Israel. hase ahaatee wada hadallada waxay si gaar ah u taabanayaan wadanka Mareykanka. wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran ayaa sheegtay in hadalka ku saabsan in Iran loo soo jeediyo degniin ama waqti kama dambaysa uu yahay mid lagu qoslo oo la yaab leh. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in arrinta haatan taagan diiradda lagu saarayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalada ka socda dhammaan jihooyinka gaar ahaan dalka Lubnaan iyadoo la sii wadayo dadaalada siyaasadeed ee kuwa diblomaasiyadda ee la doonayo colaadda muddada dheer ka taagnayd gobolkaasi ee u muuqata inay riiqdeedu sii dheeraanayso in la soo gabagabeeyo. sidoo kale Tehran waxay sheegtay in ay si niyad sami ah ay uga wada hadlayso balse Mareykanka looga baahan yahay inuu muujiyo dhab-ahaanshiyaha iyo daacadnimada wada hadalka la doonayo colaadaasi in lagu gabagabeeyo. wasaaraddu waxay ka digtay in haddii dhinacyo kale ay ku adkaystaan shuruudo xad-dhaafa taasi ay keeni karayso in diblomaasiyadda aysan ahayn mid keeni karaysa wax natiijo ah marka la fiiriyo dhinacyada hadda ishaya. dhinaca kale Iran waxay ku eedeysaa xildhibaanada
ama xanibaada badda ee Mareykanka inay tahay mid ka hor imaanaysa xabad joojinta iyo sharciga caalamiga iyadoo sheegtay in arrintaasi ay weli tahay mid muhiim u ah wadahadallada ka soconaya gobolka bariga dhexe ee dowladda Islaamabad ay garwadeenka ka tahay. wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in booqashada wasiirka amuraha gudaha ee Pakistan ee Tehran uu ku tagay ay ujeedadu ahayd in la fududeeyo isweydaarsiga fariimaha u dhaxeeya labada dhinac. waxaa sidoo kale la adkeeyay in dalalka heebaha lale ay xaq u leeyihiin wadanka Iran inay si nidaamsan marinka Hormuz u ilaaliyaan amniga iyo deegaanka isla markaana la sameeyo habraacyo lagu maareynayo baa lidhi qarashaadka amniga iyo maraakiibta. ugu dambeyntii Iran waxay ku celisay cadaadis iyo hanjabaad ay sameeyaan kuwa ka soo horjeeda inaanay noqon karayn kuwa ugu dambeyntii iyaga ku yeelan kara saameyn dhibaatooyin ku haya mustaqbalka oo dhibaatadaasi noqonaysa mid xal aan loo helin sida ay hadalkooda u sheegeenba. ikhtiyaarta inala socota ay tabinta qaybtan oo ku saabsan barnaamijka taxliilka wararka caalamka iyo lafagurka diblomaasiyadda qaybtan intaas ayaan ku akalayaa. mawaadiic kale ayaa inoo soo socda aynu ku eegi doono wararkii ugu dambeeye ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara. nabadgelyo.